السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam Allah ka noqdo dhamaantood markii akhrisid qisooyinkooda sidii quraanku akhrin jireen salaatood u tukan jireen ayaga isugu naxariis badnaayeen qadarka ku dhaco u soo badnaayeen umu salama markaas soo xasuustay ayadoo wiilkeedii xanuunsan intuu odayga ka tagay xaajigeed uu ka tagay wiilkii asoo intuu maqnaa xaaji wiilka dhintay ee ku leedahay markuu imaado ahsan xaal uu ku jira xaalkeed ugu wanaagsanaa uu ku jira aysan u sheegin gadaal ugu sheegin inuu dhintay waxaa leedahay ma jirsanaysa alla ila dadkaas wanaagsanaa sidii u dhaqmaa isku jeclaayeen waqtigood inaan noolaato fiicnaan lahayd ka waran 2024 haddii ay nool yihiin dad sidii saxaabadii u wanaagsan u quraan aqriyo u dulqaato u sabar badan tusaale aan soo qaadanay isbuucan dhexdiisa waxaa dhintay sheekh Cabdixamiid sheekh Cabdishiir Al-Shamaak wiilkiisa Allah u naxariisto samri iimaan Allah ka sii shaqeena sidii u sabar sheekha ilmihiis quraanku ugu tarbiyay ugu wanaagsan yihiin waxa arkaysaa xaalada walaalahay qisooyinka saxaabada laga soo warin jiray ilaa hadda dunida ka dhacan dadkii wanaagsanaa ilaa hadda dunida joogan halkaas markay marayso waxaan soo xasuustay aayadda quraanka ahayd man kana yuriidu al-'izza lillahi al-'izzatu jamii'an cidii sharaf iyo karaamo doonayso dhammaan sharaf iyo karaamo dhamaanteed xaq ilaahay bay jirtaa waxaan kaloo soo xasuustay qiso hadda ka hor aan ka dhageystay sheekh Yaxye wuxuu yiri maalin ramadaan kamid wuxuu dhahay waxa wiil dhalinyaro ah aan meel kula kulmo ramadaankii marka ramadaanka bil walba maalin walba oo kamid ramadaanku dhahay wiilka quraanku dhiman jiray maalin kasta quraanku soo dhiman jiray maalinta ugu dambeysay uu dhahay uu ka mashquulay maadaama la raadinayay waxa la raadinayay bisha oo ciid fidriga bisha in la tinka la raadinayay bas sidii waxa ku dhalatay bisha kale ciid bay noqotay habeenkii dhan wiilka oo ayaa yiri muxuu ooyayaa maalintaas quraanka muusan dhameyn darteed subhanallah ilaahay waxaan ka baryaynaa dadka wanaagsan ilaahay inuu nagu daro sidoo kale ilaahay naga dhigo ku quraanka fahmo oo ku tadabburo oo macnihiisa fahmo oo akhriyo Allah naga dhigo jazaakumullahu khayr.